waxa ay ahayd runtii safar aad iyo aad u qiimo badan bulshada deegaanka ku dhaqana ay aad iyo aad noo soo dhaweeyeen waxaan u adeegnay bulshada oo ka koobnayd 850 ruux oo ka koobnaa caruur hooyooyin dad waaweyn iyo dadka dhexeba anigoo ah Dr. Aydruus Maxamed takhasuskayguna yahay barashada xanuunada ku dhaca maqaarka timaha iyo cidiyaha bukaanada ugu badan ee aanu adeegnay waxay u badnaayeen caruur iyo dad waaweyn cabashada ugu weyn ee ay qabeen waxay ahaayeen xanuunada ama infectionska ku dhaca madaxa ee naqaan cambaarta eczema ama xasaasiyada iyo xanuuno kale oo rare oo aan runtii sida psoriasis ama xanuunada kale ee ku dhaca macdanta oo sida ay u badnaayeen xanuun dadka aan u adeegnay runtii dadkaasi waxay ka koobnaayeen waxa ka muuqatay inay u baahan yihiin baahi caafimaad iyadoo meesha ay ku taalo xarun yar oo health postia runtiina aan u adeegi karin bulshadeynta inta leeg dadku sida ay noo sheegeen adeegooda caafimaad waxay u doontaan meesha ugu dhow ay tahay waa inay cusbitaal u yimaadaan Beligweedle mararka qaarkoodna waxayba uga sii gudbaan inay gaadhaan xarshin ilaa Jigjiga runtii waxa ka muuqatay baahi weyn oo caafimaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Kabe Foundation oo maalgelinta bixiyay inaan adeega u fududno bulshadeynta waxaan kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan Racha Medical Volunteer kuwii nagala qayb qaateen raacay inta dhaqaalaha ku saacida iyo intii aan waqti ugu saamixinba waxa aanu tala joodin soo jeedin leyn dhammaan bulshadeynta ka soo jeeda kaamahashin iyo inta ku hareeraysan inay dadkaas helaan xarun caafimaad oo loogu adeego oo ka qabtirta baahiyaha caafimaad ay qabaan hadii gaar ahaan dhalaanka iyo hooyooyinka uur kale waxa ka muuqatay bulshadeyntaas inay hooyooyinku badankoodu ay ka cabanayeen dhiig la'aan oo aanu siinay care inay helaan dawooyinka dhiigga lagu kordhiyo waxay aad uga cabanayeen iyaguna inay u baahnayeen talooyin caafimaad sida xanuunada la isku qabadsiiyo sidii ay uga hortagi lahaayeen faraxalka qaabka ay nadaafada ugu dadaali lahaayeen runtii capacity-ga anagoo ka koobnayn dhakhaatiir aad u badan oo 4 dhakhtar oo dentist iyo 3 dhakhtar oo dhakhaatiirta xanuunada kala gedisana haddana culays weyn baa jiray marka waxaan ugu baaqi lahaa bulshadeyntaas inay adeeg caafimaad iyo xarun caafimaad ay helaan